السلام عليكم أصحابتي، إذا قال أصحابتي ستهم سيكو بردين سيكو ركشين وإذا سلام يا أصحابتا ويقلي وحاني سودو بجري فيديو وسع كهلا وحيالها ممكن كدعوي ومد سومالي كدعو مفاهنتي بسم الله. كورام شيكي سنين درد حكاوضا هانا قبلها سوماليات enablers inay yihiin enablers waxaa la qof u ogolaado qofka kale inuu ku dul socdo ama wuxuu rabo ku dul sameesto ama wuxuu rabo sameeyo. wiilasha Soomaaliyeed waxaa la dhahay gabdhaha ayaa qaldan, gabdhaha waxyaalaha qaladaadka u horkaco, gabdhaha ayaa u ogolaado waxyaalaha qaldan in lagu sameeyo ama ay sameeyaan. waxaa arkaysaa wiil gabar soo xumeeyay xaaskiisa haysan waayo soo dulmiye caruurtiisa soo dulmiye gabar kale ay soo xareysanayso. I did that, honestly, I'm not lying. I did that. ma fahantay waana ka shalaynaya ma fahantay nin dambe naag soo xumeeyay inaan jaanis siinin aan balan ka qaanafsadii. laakiin gabdhaha iga yar ama gabdhaha iga weyn aan gabdhaha dulmigaas ku jiro ama sameynaya raba inaan ka dabigeeyo. ogow gabar walaasha marka wiil qalad ku sameeyo ogow adna inaad ka fakaninin. That's the reality. qofkan haduu gabar ka soo qaldama ama qalad ku sameeyo adna uu kugu sameeynaya wiil iyo gabarba. hadaa wiil tahay ogtay gabadhan wiil ka soo qaldantay, wiil isticmaashay, wiil lacag ka cuntay maxaa lahaayay ogow waa she's like that. waxaa la tigers don't change its stripes ma fahantay. it'll be hard qofka bini'aadamka inuu isbedelo ma fahantay. There will always be deception haday deceiver inay yihiin deceiver wahanaya. You know, Allah wa'alam binaanku sometimes was bedeli karaan, laakiin it will take them experience after experience, and the person that will say no to them, they will learn their action. markuu qof uu dhaho maya waxaan qaadanayo waa qaldan tahay, qaladaadkan dhowr jeer ku soo dhacday inaa istaxdiid waay, markaasuu qofka istaxi doonaa. laakiin hadduu helo time to time qof uu ogolaado waxyaaluhu sameynayo inuu sameeyo oo dad badan uusas ugu dul soconi doonaa qofkaas ma fahanta qof kura waha ahaado ولا قلد يفهمنا قفنا كما دغه hadlay. laakiin dhibaatooyin badan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haysata waxay tahay inay badanaa in ay balaaris ay yihiin hooyooyinka hore xataa saasi ahaayeen oo xaajigeeda oo maxalaad gabar shalay waxa laga sheekeynay xaajigeeda oo keenay cudurka xumaa HIV/AIDS just because every time uu baxo Afrika ku soo guursanaya uu soo laabanaya halkan ku imaad xidha oo abaadaa ku jeclahay gabar yareed oo Afrika soo guursadana uu furiyaa ma fahantay. marka ayada wuxuu malaysaa inuu iyada jecel yahay naasna uu soo go'ay, laakiin underlying issues ka dhibaatada ugu weyn nolosheeda uu galinayo kama waranto nafsadeedu u qoonsaday ma fahantay. jaceelkaas fake ah oo agta gareenaya iyada inuu jecel yahay, laakiin wuxuu sameynayay maxaa lahaay in labadooda dunida inay ka tagaan noloshooda oo isku qoonsadaan. marka hadaa dumar tahay aa og tahay inuu kula joogo oo maxaa lahaayay dulmi badan oo maxaa lahaay dumar badan oo dhibaatooyin badan soo geystay, walaa mustaqbalka ka fikir walaal adna wiil hadaa tahay sidoo kale tay down and elbow somebody inuu kugu dul socdo, inuu ku sheego jacayl been iska ka dhigo inuu ku jecel, laakiin underneath jacaylkaas waxyaalo badan uu ku sameeyay ma fahanti. dad waxaa jira markaas siisid 1 inch qaadanayo maxallahay meter maxallahay ama qaadanayo maxalla feet ma fahanti. maxalla metric system ka Mareykanka isticmaal waa inches and feet. marka iska warqaba waa salaami asxaabta. that was my weekly wisdom ma fahanti. weekly wisdom ma idin soo duwa bariyaan waa ka dib dhacay. marka salaami salaam calaykum bye.